gudoomiyaha xisbiga Waddani ee gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin kale oo heliyay ayaa waxay kormeer ku tageen dugsiga Degaanka Casuuro oo Wqooyiga degmada Ceerigaabo ah kaasi oo sida halkaasi laga sheegay kadib muddo badan oo dunsanaa wasaaradda waxbarashaduna ka dhagaadagtay inay wax ka qabato dugsigaas ay xisbiga Waddani dayactir ku sameeyeen isla markaana xilligan ah dugsi ay wax ku bartaan ardayda dayarta ee deegaankaasi kagana badbaadeen dabaysha dhaxanta cadceedda roobka iyo wixii la mid ah waxaana sidoo kale mas'uuliyiintan xisbiga Waddani ee heer gobolka Sanaag kulan ballaaran oo isxog waraysi halkaasi kula yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Casuuro waxaana kulankaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka deegaankaas waayeel waxgarad kale iyo haweenkii halkaasi ku sugnaa kuwaas oo xisbiga Waddani uga mahad celiyay tabantaabada iyo taageerada muuqata ee uu deegaankoodan ka geystay sidoo kalena sheegay in codkooda ugu heelin doonaan xisbiga Waddani waxa halkan noogu yimid maanta horena noogu yimid waqti ka socda xisbiga Waddani iskuulka arkaysan halka idin ka muuqda muddo 3 bilood ka hor ayaa jingadii wax naga la tagay roob dabayl 3 biloodna ardaydii waxba kuma dhigeen ilaa 6 arday baa dhigan jiray marka waqtiga hore noo yimid ahaa ee Waddani markuu arkay sida iskuulku yahay dayaca ka muuqda iyo ardayda joogta master daaday gudoomiyaha gobolka xisbiga Waddani ah wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ana inta deedaya isagaana daaday marka wuu mahadnaqaynaa si aad iyo aad iskuulkiina maanta waa la dhiganayaa marka wuu mahadnaqaynaa xisbiga noo dhisay iskuulka ee jingadii iyo noo saaray wixii ka dhinaa isagaana nahay codkan isagaanu siinaynaa xisbigana waxaanu rabnaa inaan xafiiskiina inaan dhaqso u furo aanu ka furo deegaanka Casuuro waxaanu ka shukrinaqaynaa iskuulka aad samaysatay aanu hore u samaynay ee maanta naloo dayactiray ee wax ka qabateen ee ardaydii maanta timi ilaa shay dhiganaysay waxa waa ka weynay waxbarashada xisbiga Waddani codkana waa siinaan gudoomiyaha gobolka Sanaag ee daaday iskuulkaas oo hore aanu anagu dhabnay ee aanay noo dhisin wasaaradda dawladda ka socotaa ee aanu dhisnay 3 bilood hortee dumay ee haddii meel kasta la tagay cidina dhisi weeday noo saaray jingadii oo noo hagaajinaya oo ilaaha darwiigan misna la dhiganayay waa ilaahay mahadi ma haddana xisbigaas aanu siinaynaa codka oo nahay oo u baahanahay kii wax noo qabanayaan wax u baahanay kii wax noo qabtay baanu la soconaa iskuulka 3 bilood laga dunsanaa waxaanu u mahadnaqaynaa ilaah baa mahad leh xisbiga noo dhisay ee Waddani ilaah baa mahad leh iyaga noo dhisay oo noo hagaajay iyagaanuna u codaynaynaa mas'uuliyiinta xisbiga Waddani ee kormeerkan ku wehelinayay gudoomiyahooda oo iyaguna halkaasi ka hadlayay waxa hadalloodii ka mid ahaa maanta caruurtii waa xerootay dhaxantii iyo roobkii wixiiba maanta waa ka xerootay waxa ku jiraan dugsi iskuulkooda gudihiisa bay ku jiraan waxbay ku baranayaan waxbay ku dhiganayaan galada ilaahay baa le iyo xisbiga Waddani xisbiga wuxuu idin ballan qaadayaa haddii uu soo baxo iskuulkan inuu ka dhigo iskuul weyn waxaan ka badan oo idin qabanaya xisbiga haddii uu soo baxo insha Allah bismillaah kariim xukuumadda iyo joogaan xisbiga kulmiyeeya waa inaad waxbaanu qabanay niman meel bagaarin oo hadda xisbiga waxba taladaba qabanay intan markuu sameeyay barina wax la garan karaa inuu samayn doono kuwa kale iyo wax ka weyn ugu dambeyntiina waxa kulankan dhex maray mas'uuliyiinta Waddani iyo bulshada deegaankan Casuuro ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Waddani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday iskuulka waa taas laga warbixiyay oo la dhiganayaa deegaanku waa deegaankaanu ka soo jeedno waa deegaankayagii marka cidna ku hadlayn mayno oo cidna u daba fariisan mayno malaaqolada kulmiyay aqoon badan oo ma laha waa deegaan cod leh oo dhowr sanduuq baa yaala annaga iska leh haddaan xisbiga Waddani idinkana waxaa laydinka doonayaa jiidda tamba inaad u helisaan deegaankiina inaad ciddii wax idiin qabanaysa aad wax tartaan oo wax gashataan idinkuna oo xisbiga Waddani aad cod ka siisaan sababtoo isagoo xisbi aad garanaysaan cidda hogaaminaysa si kastaba ha ahaatee deegaankan Casuuro ayaa ka mid ah deegaanada bulshooyinka tirada badan ee ku dhaqan yihiin ee degmada Ceerigaabo isla markaana bulshada ku dhaqan marnaba aanay ka guurin deegaankaas sidaas awgeedna wax weyn ka tari kara codbixinta doorashooyinka gobolka Sanaag iyo Somaliland ba waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo